isbitaalada ku yaala waqooyiga magaalada Sinai ee dalka Masar una dhow xadka uu la wadaago marinka Gaza ee Falastiin iyo Ismaaciiliya oo ku dhow marinka Suez ayaa diyaar garow ugu jira soo dhaweynta dhibanayaasha duqeymaha diyaaradaha maamulka Israa'iil ay ka geysanayaan marinka Gaza sida ay Israa'iil ka tirsan dowladda Masar ay sheegeen duqeymaha cirka ee Israa'iil oo socda tan iyo 10kii bishan May ayaa ilaa iyo hadda waxa ku dhintay in ka badan 120 qof oo ka mid ah dadka reer Falastiin oo ay ku jiraan 30 caruura waxaana ku dhaawacmay in ka badan 900 oo qof sida laga soo xigtay wasaaradda caafimaadka ee dowladda Falastiin isbitaalada marinka Gaza iyo xirfadlayaasha caafimaadka ayaa la daalaa-dhacaya sidii ay uga jawaabi lahaayeen baahida dhaawacyada laakiin qaar ka mid ah dhibanayaasha ama dadka ku dhaawacmay ayaa la filayaa inay gaaraan dalka Masar si loogu soo daweeyo isla markaasina ay uga soo kabtaan dhaawacyada duqeymaha diyaaradaha maamulka Yahuudda maamulka guud ee daryeelka caafimaadka oo ah garabka fulinta ee wasaaradda caafimaadka ee dalka Masar ayaa Jimcihii sheegtay in ay diyaariyeen daaweynta dadka dhaawacyada qaba ee ka soo baxaya marinka Gaza ee la filayo in saacadaha soo socda ay yimaadaan dalka Masar dowladda Masar ayaa sheegtay in isbitaalada iyo goobaha caafimaadka ee u dhow xadka dalka Masar uu la wadaago marinka Gaza ee Falastiin Ismaaciiliya oo ku dhow marinka Suez inay u diyaar garoobeen sidii dhaawacyada loo daweyn lahaa Jimcihii qaramada midoobay waxa ay sheegtay in dad lagu qiyaasay 10,000 oo Falastiiniin ah inay guryahooda magaalada Gaza ay ka baxeen tan iyo Isniintii sababo la xiriira isku dhacyada halkaasi ka soo cusboonaaday isku dhacyada ayaa sidoo kale gaaray kooxaha Yahuudda iyo Carabta Israa'iiliinta ee ku dhex dagaalamaya gudaha Israa'iil taas oo keentay in madaxweynaha maamulka Yahuudda uu ka digo dagaal sokeeye wasiirka gaashaaniga ee maamulka Yahuudda ayaa amar ku siiyay ciidamada amniga ee Yahuudda in ay xakameeyaan qalalaasaha iyadoo in ka badan 400 oo qof la xiray booliiska ayaa sheegay in Carabta Israa'iil ay mas'uul ka ahaayeen dhibaatada inteeda badan halka iyaguna ay iska fogeeyeen eedeymahaasi